kamida ninka labaad waxa la yiraahdaa Baashe Batuum Kaahin waa nin garxajisa oo habaryoonisa waa taliyihii guutada 26aad ciidanka jabhadda argagixisada Islaam sidoo kale wuxuu ahaan duulihii hogaaminayay maleeshiyada nabadiidka lagu magacaabo Iimaan Omar Warsame oo isagana kamid ahaa saraakiishii sarsare ee shalay ku dhimatay waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Cornel Ahmed Bigay fanaanka loo yaqaano Khalid Kamil walaalkiisii oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Cabdullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadan Mubaarak dhamaan meel ka soo nagaleysaan soo dhawaada halkani waa Cabaas Madani waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo dagaalkii shalay dhacay khasaaraha ka soo gaaray cadawga iyo jabka gaaray cadawga saraakiisha lagu laayay tirada khasaaraha dhimashada oo aan xogaal badan ka ahay xiriir badan ay dhexdooda aan sameeyay xuraan badan aan sameeyay waxa rabaa dadkeenu inay ogaadaan ciidamada geesiyada daraawiisha dawladda ee si qaatumo jabweyn bay geystay iyagoo waliba lagu soo duulay oo duulaan lagu ahaa gardaraare ma guuleysto Soomaalidu waxa leeyahay been waa sheegta beensa kuma maamaahdo qodobka waa faaqidi doonaa khasaaraha saraakiisha dhimatay xaqooda tirada dhimashada beeraha meelaha lagu kala aasay iyo khasaaraha gaaray qodobka ugu dambeeyay waxa weeye arrimo fool xun aan rabo inaan ka sii digo oo laas aanoodan in rag dhaqaatiiro telefoon loo diray arintan hal gaarsiyo cida ku hawlan fariin baan u dirayna haday fariintaasi u hogaansami waayaan sharciga la waafajinaya maxkamadana la horgeynaya wixii sumcad dil ku ah deegaankeena marka si share garee muuqaalkan fadlan waa kugu amaano si share garee dhagaha u fur qalasyadana gaarsiiye guusha ay soo hoyeen baan rabaa inaan halkan fiiso cadeena inaan halkayda ka tusiyo intaan qodobka guud galin waxaan maqlayaa warar badan ba xoga badan baan hayaa niman halkan aan dhawaan ka sheegay oo buuhoodla oo koox maafiya ah oo doonayay gaashaamayn u dhuntaan ayaa maqlay nuux iyo xoga badan inay wali jiraan kuwa hanqal taagaya inay gaashaamo dhuumasho ku tagaan waxaan xogta ku hayaa inay jiraan kuwa isaaqii oo gaashaamo tagay ku hungoobay kadib markii aanu fashilay wali waxa jira kuwa doonay dhiiga dadka reer si qaatumo inay ka baayac mushtaraan hadaad ku sii socotaan gacan baa wax leeyahay ka qabanaya dawlad iyo shacab isku duuban waa arkay maanta in la sheegay meel halkaas oo lagu masaajidka jaamaca buuhood in laga qanuuniyay oo qaarkood madaxa saa u ruhayay taana xogta waa hayaa waxaan hayaa xogta dhaqaalaha ay qaybsadeen ee doonayeen inay ku safraan qaabkay u qaybsadeen ma xataa hayaa inta gudiyadoodan hayaa intii garwadaan ka hayaan hayaa ogaada inaad ummadda khiyaamaysan oo habeenka xalay tagay weeyay shacbiga reeraysi qaatum xiligii la kala dhodoobi jiray xiligii la kala irdeen jiray waa soo dhamaatay annagoo mid ah ayaan go'aansi ka qabanana kuwa wali u hanqal taagaya la hadlaya ee la waxa weeyaan laba baxno aan mid baxno talaaba iyo taaka kasta meel kasta maraysan wala la socdo jamaahirtu indhaha ku haysaa mid kasto awlaha ku fogan faraha kala bax adeero war Ramadan cibaadeyso dadkaaga dhinac ka raac qodob asaar weyn ayaa shalay la gaarsiiyay jabhadda khawaarijta argagixisada Islaam shalay markay weerar ku soo qaadeen mid kamid ah guutooyinka sida gaarka u toobaran ee ciidamada daraawiishta dawladda ee si qaatumo oo ku sugnaa furiismaha hore gaar ahaan halka loo yaqaano baliya iyo boqorkan dhexdooda ayaa weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen maleeshiyada argagixisada Islaam iyagoo markaasi weerarkan diyaar gareynayay muddo dhowr bilood hay'adda intelligence-guna ee SOC qaatumana si gaar ah ayay ula socdeen dagaalku sidaas ku bilowday ilaa 8 saacadood buu socday wax rabaa inaan markaa halkan ka carabaabo saraakiil garbacas oo baaqigii dagaalkii gooja cadde ayaa rabaa inaan halkan ka carabaabo iyo sawiradooda waxaan kaloo idin carabaabaya dhimashada iyo khasaaraha gaaray waan idin carabaabaya horta saraakiisha koowaad ee meesha waxa uu ku dhimatay waxa kamid ah Maxamed Jaamac Jibriil tarihii guutada Birjeex ama ciidamada Birjeex ninkaasi meydkiisa la helay waa raggii ku dhintay ee Suuriga haystay ee hogaaminayay kooxda nabadiidka argagixisada waa nin Ciise Muuse laakiin warka la yaab kale waxa ninkaasi xabada dhabarka kaga taala xabadu wadnaha kaga taalo wajigana kaga taalo waxaan u baahantay iyaga dhexdoodu inay markaasi iska dileen oo waayo dinii xabadu dhabarka kaga taalo waa garan kartaa waa nin cidii ka dambeysay un baa toogatay ninkaasi waa ku daayay raggii shalay jamaahiirtu ku ibaadeysteen ayuu kamid ahaa waxa kamid ah ninka labaad waxa la yiraahdaa Baashe Batuum Kaahin
وانين قد حجيسة وهبريونيسة وتليه جوتدا لحلباتنا ciidanka jabada argagixisada Islam sidoo kale wuxuu aan duulihii hogaaminayay maleeshiyada nabadiidka ee argagixisada Islam ee shalay duulaanka ku soo qaaday ciidamada daraawiishta dawladda ee qaatimo waxa kale oo kamid ah ninka lagu magacaabo Iimaan Omar Warsame oo isagana kamid ahaa saraakiishii sarsare ee shalay ku dhimatay dagaalkii afar waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Damal Cawl ama Ahmed Cawl Meegaag ninkaasina waa uu ku daayay oo wuxuu kamid ahaa saraakiishii shalay qaatay dagaalkii shalay waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Cornel Ahmed Bigay ninkaasina wuxuu kamid ahaa saraakiishii meesha ku geeriyootay shalay ee ciidamada jamaahiirtu ay ku cibaadaysteen waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Captain Fuad Hugure ninkaasina waa u jeedaan raggii meesha ku laaday ayuu kamid ahaa dhammaan saraakiishani waa saraakiishii ka soo haray ee baaqiga ahaa dagaaladii Gooja Cadde sanadkii 2023 waxaa jira oo isagana meesha ku geeriyooday fanaanka loo yaqaano Khalid Kamil walaalkiisi oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Cabdullaahi sida ayagu dhaxdooda ay warkaasi baahiyeen wuxuu kamid ahaa raggii ku geeriyooday dagaalkii shalay way khasaaraha dhimashada sida loo xaqiijiyay xuraan badan oo aan sameynay iyo meelaha kala duwan ee lagu aasay beesha habar jeclo waxa ka dhimatay 58 ayaa ka dhimatay habar jeclo tiradu inta waa laga badinay qaar ba waxay geenayaan dhowr iyo 60 laakiin inta aanu xaqiijinay ee rasmiga ah ee 1 iyo 2 iyo 3 la yiri ee reerahooda la yaqaan waa 58 habar jeclo reerka la yiraahdo Garxajis waxa ka dhimatay 23 oo laba ay kamid tahay saraakiil waaweyn oo waliba raggii ay ku xisaabtamayeen 12 waa habar awal oo 6 kamid ay saraakiil yihiin oo kamid ahaa Maxamed Jibriil oo Ciise Muuse raggaasina waa hawey habar awal 12 ayaa ka dhimatay beesha Samaroon waxa ka dhimatay 7 sida la sheegay dadka qaar aan la xiriiray waxay sheegeen tiradu inay inta ka badan tahay laakiin inta aanu confirm gareynay waa 7 way Samaroon waxa taraha hal nin ka soo jeeda beesha Madhimaan oo kamid ahaa ciidamadii dhawaan lagu soo tababaray Ethiopia tirada guud dhimashadu waa 101 ragga shalay inta la xaqiijiyay ee dhimatay waxa kale oo jirta oo nala xaqiijiyay 26 kamid ah hadda weyn la yihiin waxaana loo badinayaa meelihii ayagu dagaalka kaga jiray meelihii ciidankeenu kaga jiray midadkooda yaalaan dabcan ama ay go'doon yihiin sida la sheegay laakiin 26 kaasna waa dadka ay la yihiin kamid yihiin meelaha ay ku aaseen aynaba waxa lagu aasay 22 birco waxa loo gudbiyay oo iyaguna meedadkooda lagu aasay 19 Ceeldhaab oo aad wada garanaysaan kaasna waxa lagu aasay 11 oog waxa lagu aasay 32 sidoo kale waxa jira 17 saaka ciidamada SSC Khaatumo ay meedadkooda ka soo ururiyeen goobihii baliyaciye iyo goobihii ay cadawga ka saareen marka la fiiriyo waa jab weyn oo saraakiil leh oo ciidamo leh oo garbacas leh anigu mararka qaar waxaan dhahaa war isaaqo ma kasiina ma expert ba khamaarka lagu khamaanay dadkaas hadda miyaan heer ka dhalan miyaan qoysas ka soo toosin miyaan ay guri laga tabay dadkan xaabada maalin walba xaabada lagu soo shubayo maalin walba tarab u dhimanaya miyaan heer ka dhalan miyaan hooyooyin dhalin waa shakadan la yaabanahay way waxa rabaa inaan ciidamada SSC Khaatumo u diro horta marka hore inaan bogaadiyo inaan u hambaliyeeyo difaaca iyo dhulkooda soo difaacaan sharaftooda iyo irdigooda midda qabiil iyo midda dhuleednimo ay difaaceen oo hambaliyeynaya shalay ciidankii ay weerareen guutadii shalay weerareen iyo inta soo weerartay iyo siday dharbaaxada ugu dhufteen oo ay ku inkir waayeen waa mid ilaahay loogu mahadnaqo way waa mid mudan guutadaas in lagu daro ay soo weerareen in taariikhda baal dahaba horta waa bogaadinaya meeshan la leeyahay boqorkeen ay ku soo weerareen waxa ka dhisan wali baraago baa ka qodan masaajid fidnaa oo ay fidnahaan loo sameeyeen waa ka taagay wali dadka reer SSC Khaatumo ma aanay garowsan masaajidkani waa fidno isaaq fidno u abuuray fidnana waa keenaya wali fidno doota socota waxaan leeyahay hadaba masaajidkana hala burburiyo oo hala dumiyo fidna loo abuuray fidnana waa sababay masaajidkaas horta khadka laga saaro baahi loo qabo iyo cid ku tukanaysana absolutely ma jirto baraagahana sidoo kale baahi cid u qabtana ma jirto
waxa weeye de meel magaalo noqon karta magaalada meeshani ma aha sideeda marka maxaa boon in laga leexleexdo runta ma aha baraagahana hal awdo masaajidna cagaaf hala geliyo meeshan hal lagu soo celiyo dhul daaqsin magaalo ma noqon karto biyayna inta u jirto waad ogtihiin meeshan masaajidkaas nimankan u eeganayaan masaajidka iyo inta baraagahaasi inta jiraan dagaalku istaagi maayo maalin walba gaadmay soo sameynayaan si meesha taas markaa uga baxdo waa in la burburiyo masaajidka qoliyaha diidan waxaan leeyahay ha u joojinin ciidamada caafiftooda la taala galiya masaajidku hadii fidna loo abuuro waa in la dumiyo weey fidna loo abuuro cid ku tukanaysa ma jirto marka maalin walba in dagaal ka dhaco maalin walba nimankaasina waxa weeye ay tarab intaan iyo doorku oo lagu laayo waxaan leeyahay ciidamada cagaafta galiya baraagaha aasa dhul daaqsimkii baqdarkeen way lagu socoriyo weey awood iyo quwad cid maanta idin hor istaagi kartana ma jirto waa ognahay mid kale waa idin sheegaya dagaalku waa inuu target yeesho xageena targetkeenu muxuu yahay targetkeenu waa inuu noqdaa weyn caynaba iyo og oo ah tuulooyinka laga soo duulayo ciidamadana soo aftiraan weey waa in la tago weey waa in la tago lagu burburiyo weey sababta weerarku istaagi maayo weerarka maanta intii yareeda shalay soo urursadeen waa ka kala daadeen shalay Soomaa 4 bilood bay ku qaadanaysaa 5 bilood inay darees soo urursadaan marka ciidankeenu ma kasiinu sugaya marka ma expert bu sugaya maalin walba ii door kasiina oo expert maalin walba ciidankeenu sugaya amay weey meelaha laga soo duulayo targetkeenu waa inuu noqdo inaan qabanno wiilka askariga ee si qaatumay qalaska inuu tasmaankiisa iyo maskaxdiisa galiya saraakiishan waxaan leeyahay ciidamada ka hor leexda ciidamadu waajibaadkooda ha gutaan oo maleeshiyada nabadeedka argagixisada ha soo aftaraan si amniga gobolka iyo kan deegaankaba waxa siloon u noqdo maanta waxa hadlay Ciro oo arkay Ciro oo la qaran baan difaacaya arrimaha ka shaqeeya horta hadda kor raawaydi sheegay Ciro oo mid dhul taalo weeye nabadana ogaada markasto ay nabad ka sheekayaan oo mararka ay weerarka gaadmada ay soo qaadaan dagaalkii 91 baa loogaa kii sana ka dhacay kii soo ka dhacay kii cayn iyo tog dheer ka dhacay dhammaan markasto ay nabad ku baaqaan oo mararka ay duulaanada iyo weerarka ay soo qaadaan hadda maalinta dhaweeyay arrintii aan baajinay aan fashilinay gaashaamo aroontan baajinaynay orgaladii koonfur bacdaashaha iyo dagaalka boqorka maxaa isku soo beegay waxa la yiri halaga faa'iideysto shalayse waxay dhuusan moodayeen baxaar ku noqdayo waa kuwa maanta dhimashadooda boqol ay kor u dhaaftay saraakiishii ay ku dhaadanayeen ay ku faanayeen ciida hoos marqaarna meedkooda ay ka carareen casino waa soo dhaweynay door casino door expert waa soo dhaweynaa anagu taasina waa taa weey marka soo nabad ka sheekeeyo markay weerarkay duulaanka yihiin yaa lagu kadsoomi dadka reer is qaatumaan leh waxaan ku soo gabagabeynayaa arriba maqlay xogteeda iyo galkeedana gacanta ku haya niman dhaqaatiir oo Etoobiyana in lagu magacaabo Tadase in lagu magacaabo Dr. Hayle oo ah dhaqaatiir midna uu yaqalinka guud midna uu yahay dhakhtarka lafaha oo laas aano joogo oo shatiye sharciyad u haysta dawladdu ay siisay nimankaasi handadaad inay la kulmeen baa la sheegay niman ganacsata oo isbitaal kamid isbitaalada laas aanood baan hawsha ka dambeeya markii aan baaris ku sameeyay falkaas waa fal gunnimo waa fal waxa way khatar ah ina idinku ganacsigiin hadii uu isbitaal kale ka shaqeeyo ina la handado oo la yiraahdo waxa way dhibaato lagu geysanaya arintaasi dadka ka shaqeeyay isbitaalka ka shaqeeyay ee doonaya inuu ka baayac mushtaritaas hadii uu isfaham waa uu jiro ama uu dinku cid contract u saxeeyay isaga u taalaay hadii aan ii shaqeyn weydo waan ku handadaya ninka taa ku fakarey meesha dawladda ka jirta wallahi ha ku fakarin ha horseedin isbitaalka inuu xidhmo halkan laga bayaamiyay magacyada waan hayaa liiski kulli waan hayaa ma rabo inaan ganacsiga xiro oo dhibaato u geysto laakiin waxaan leeyahay sumcad dilka ad ku wadaan magaalada iyo caasimadda iyo gobolka iyo dawlad goboleedka si qaatum leeydi ka aamusi maayo magacyadiina nu haynaa isbitaalka magaciisa ma rabo inaan sheego waan garanayaa cidda ku hawlan baan garanayaa arrinta ka fogaada haddaad ka fogaan weydaan laba arrimood u diyaar garooba in xabsiga la idinku goro sharciga maxkamadaha la idin hormariyo halkan aad ka daawataan isbitaalkiinina uu xidhmo Soomaalidu waxay tiraahdaa wax badso wax beel bay dhashaa ha u horseedina isbitaalkiina inuu xidhmo dawladdan waxaan leeyahay
dadka dhaqaalaha lagu qaaligareynayo isbitaalada qaaligareynaya ee doonaya inay ka bayca mushtaraan dhiiga dadkeena arinta wax ka qabta isbitaalkii dadka dhaqaalaha ku qaaligareeya wadani ma aha waxa way waa cadow weey ninka dhaawacmay askariga ah ninka dhaawacmay ee dagaal wax ku noqda ee xaalad serious ninka yiraahdo lacag ma ka bayca mushtaraya yuu shaqeynaya markaa wiilka qaaska ay muwaadinka ee halyeyga ee soo dhaawacma ninka dhaqaalaha isbitaalka doonaya dhaqaalaha inuu ku qaaligareeyo yuu shaqeynaya cid kale uu shaqeynaya arintana laga fogaado insha Allah ta'ala intaas ku soo gabagabeynaya khayr badan baa idin rajeenaa insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum.